وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المسلم أخو المسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله ولا ليال وكل ونصوب وقني زيارة دعوة يوم بان مغالدة وصو قادني أفضل مسلمين ولا لها يأينا صو أرقنو صو سلامنو waayo islaamnimada ay naga dhaxaysa qofka muslimkuna waa qof ilaahay agtiisa qiimo weyn ku leeyahay bal culimadu waxay yiraahdaan ruuxul kown waxa weeyaan waa qofka muslimka sida bini aadanka jirkiisa ay ruuxu ugu jirto xubnaha bini aadanka jirkiisa ku yaala waxay la dhaqdhaqaaqayaan waa inta ruuxdu ay ku dhex jirto. haddii ruuxdaasi ay ka baxdo dhagtuna shaqayni mayso, gacantuna shaqayni mayso, lugtuna shaqayni mayso, calooshuna shaqayni mayso, waa meyit. meyidkana markaa waa maamuustiisu waa in la iska aaso weeyaan. sidaasoo kale bay culimmadu leeyihiin ruuxda qofka koonkana waxa weeyaan waa diinta islaamka oo nabigeena sala allahu calayhi wasalam waa kii lahaa laa taquuma saacatu xataa laa yuqaala fi lardi allah allah. fii riwaayatin qof laa ilaaha ila allah ku hadlaaya arlada korkeeda intuu joogo buu nebigu yihi saacadda qiyaamadu ma dhacayso. hal shaksi oo muslima oo ashahaadanaya oo le laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullah sala allahu calayhi wasalam inta uu arlada dusheeda uu qofkaasi uu joogo waxa uu nebigu noo sheegayaa saacadda qiyaamadu inaysan imanayn. bal fii saxiixi muslim wuxuu nebigu yihi shiraara alkhalqi bay saacadda qiyaamadu ku dhici doontaa. man kaana fii qalbihi mithqaalu xabbatin min iimaan aw khardal waa geed midhihiisu ay yaryar yihiin intaa in la egoo iimaana qofka qalbigiisa uu ku jira buu rasuulku yidhi dabayl ka iman doonta riix ka iman doonta min qibali shaam ayaa qof walba intuu neefsado oo ay gasho ayay ruuxda ka qaban buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ula dhiman doonaa. xataa midkiin hadduu is idhaahdo calool buur caloosheeda ka gal god buur ku dhex yaalla ku dhaadhaco ka gal hadduu is yidhaahdana buu rasuulku yidhi intay dabayshaasi ay ka daba gasheen ruuxda ka soo qaban buu yidhi ayaa hadhaya. markaa dadka ilaahay abuuray kuwa ugu shar badan baa arlada dusheeda ku hadhi doona buu yidhi kuwaasoo wanaagana aan isfarayn xumahana aan iska reebayn. ibliis calayhi lacna shaydaan baa sheekh u noqonayo hogaaminaya. markaa buu leeyahay aniga maad aqbalaysaan haddaan amar ini siiyo? markaasay leeyihiin maxaan kugu aqbalnaayoodna amraysaa noo sheeg. wuxuu amrayaa markaa bicibaadati alawthaan dhagaxdii iyo geedihii la qori jiray la caabudi jiray ayaam aljaahiliya tii buu odhanayaa ilaahyadiinu waa kuwaase kuwa caabuda. dadka ilaahay keyrkii caabudaya ilaahay keyrkii bay caabudayaan waa mushrikiin. haddana waxa uu nebigu yidhi arsaaqada dhinac walba oo laga dhigay. waaladiina kadabuu biaayaatina sanastadrijuhum min xaysu laa yaclamuuna baa ilaahay yidhi. kuwii aayaadka iyaga beeneeyey baa ilaahay yidhi sanastadrijuhum min xaysu laa yaclamuun. istidraajku waa maxay? adduunka ayaa loo furayaa wax walba dhinac walba waa laga dhigayaa. markaasuu yihi sufyaan athawri ay nasbiqa calayhim annicam wanamnacuhum ashukru weeyaan buu ihi macnaheegu aayaddaas. nicmadda ayaan ku hagoogaynaa oo dhinac walba nicmad baan ka dhigaynaa laakiin waxaan u diidaynaa buu ilaahay leeyahay mahadnaqa. ilaahayba garan maayaan, nicmaddii bay ku qooqayaan, ilaahay bay ku iloobayaan, ilaahay bay ku xadgudbayaan, bini aadankay ku xadgudbayaan. ayakoo markaa sidaa u ciyaaraya oo iska tumanaya ayay kuwa saacadda qiyaamadu ku dhici doontaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. marka muslimku
jiritaankiisu waa jiritaanka caalamka. adduunyadu dadka diyaaradaha sameeya iyo dadka hubka sameeya iyo dadka teknolojiyadda adduunyada la soo baxay ee sameeya iyo kuwaas sababtooda adduunyadu kuma taagno. dadka adduunyadu ay sababtooda ku taagan tahay waa kuwee? waa dadka muslimiinta ee shahaadanaya, ee ilaahay garanaya, ee sujuudaya, ee rukuucaya, ee masaajidda camiraya, ee gacmaha ilaahay hortaaganaya. kuwaas sababtooda adduunyadu ku taagan tahay walaalayaal. mar hadduu qofku yidhaahdo laa ilaaha ila allahna waa muslim weeyaan. limaada? qalbigiisa waxa ku jira annaku ma ogin. oo nebigu calayhi salaatu wasalaam fii axadi alghazawaat, duulimaadyadii saxaabadu ay duulayeen duulimaad ka mid ah, ayaa nin xagga gaalada ka soo jeedo gaalada loo malaynayay inuu ka mid yahay ayaa dhufays ku dhacay. nin ansaariyo reer madiina seeftii ku qabtay. dagaalkuna berigaa waxaa lagu dagaalamaya waa seef iyo gaashaan iyo waran iyo leeb iyo qaanso iyo gacanta la iskula tagaayey. dagaalkan zamankan fulayada ma aha, wax kula dagaalamaya adarkeed maaha. mar ali markuu seeftii ku qabtay buu ninkii yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah. deedna markaa buu yihi warkan uu islaamay, uu ka jeestay. aayar intuu ka daba kacay buu boqnaha buudi. haddana dhufayskiibuu ku dhacay. haddana nin baa ku qabtay ansaariya. dagaalka u socdaayo waa laysa soo gaadhayaaye. kii markuu haddana kii ku qabtay buu kiina u ashahaato yihi laa ilaaha ila allah, laa ilaaha ila allah. markaa buu saxaabiga yihi u ashahaatay, uu ka jeestay. mar alle markuu ka jeestay buu kiina qoortuu ka gooyey. usaamata binu zayd radia allaahu canhu ayaa arkaya markaa oo meel ka fiirsanaya. markaasuu u soo socdo isagii baa dul yimide. markaa markuu seefta ku qabtay buu u ashahaatay. markaasuu kama joojina usaama ninkii qoortuu ka gooyey isaguna. macrakadii markay dhammaatay ayaa warbixintii loo celiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam. deedna markaa buu nebigu yihi aaway usaama, ma waxaad dishay ninkaa markuu ashahaatay miyaa dishay? markaasuu yihi nebi allow de uu ku magan gelayo aniga hortayna laba nin oo muslimiin oo ansaaru sidaa ku dagay uu ku dilay. markaa buu nebigu ku yidhi oo qalbigiisa intoo dillaacisay miyaad ogaatay inuu kelmadda uu qalbiga ka yidhi iyo inuu carabka ka yidhi? nabigeena calayhi salaatu wasalaam markuu arrin diido wejigiisa laga akhrisanayey diidmada. markuu nebigu farxaan uu yahayna waxaa laga akhrisanaya wejigiisa farxadda laga akhrisanayay. markaasaa majliskii dhanna nebigu uu ka kacay isagoo cadhoonaya oo leh yaa usaama, ma isagoo ashahaatay miyaad dishay kadib? markaa buu leey yaa rasuulallah, de uu ku magangelay. magangelyo unbay ahayd inuu ku nabadgalo, unbuu doonayo dadna ku dago uu ku dilo. markaa buu nebigu ku yidhi ashaqaqta qalbahu, qalbigiisa intoo dillaacisay maad ogaatay inuu kelmadan carabka ka leeyahay iyo inuu qalbiga ka leeyahay? markaasuu usaama nebiga daba orduu yihi nebi allahu ilaahay dembi dhaaf ii weydii. markaa buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam yaa usaama, maalinka qiyaamaha seed yeeli doontaa markuu addoonkaasi la yimaado isagoo le laa ilaaha ila allah. usaama binu zayd wuxuu odhan jiray waxaan tamaniyaa maalintaa intay ka horaysayba inaan islaamnimadooda la ii tarinba, oo maalintaa wixii ka dambaysay islaamnimada aan soo geli lahaa baan tamaniyey. ninka uu dilayna waa ninkaa laba nin oo muslimiin oo ansaara kelmadda intuu u adeegsaday maaragtaane dilay, ayuu dilmada uu ninkaa dilay buu nebi maxamedna uu leeyahay oo qalbigiisa miyaa dillaacisay? seed yeeli doontaa usaamo maalinka qiyaamaha markuu kelmadda la yimaado laa ilaaha ila allah. marka kelmaddan walaalayaal waa kelmad aad u qiimo badan weeyaan. waa kelmaddii nebi muuse calayhi salaam markuu ilaahay uu baryuu yidhi ilaahoo kelmadan kugu baryo isii. markaasaa lagu yihi yaa muusa laa ilaaha ila allah dheh. yaa rabbi addoommahaaga wan wanaagsan baa kelmadda isticmaalee to aniga ii gaara isii. markaasaa ilaahay ku yidhi yaa muusa 7 cer iyo 7 dhul haddii miisaanka dhinaca kafadda laga saari lahaa, laa ilaaha ila allahna dhinaca kale la marin lahaa, laa ilaaha ila allah waa ka cuslaan lahayd baa lagu yidhi. kelmaddaas qofka ku qowlaya xurmad buu qofkaa yeelan. dhaqaalihiisu wuxuu noqonayaa dhaqaale xurmala buu noqon oo xaqdayn in lagaga qaato ma bannaano. nacam, mucaad binu jabal markuu nebigu yaman uu u diraya calayhi salaatu wasalaam muxuu u bandhigay? waxaa dadka aad ugu yeedhaa buu ka yidhi shahaadati an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulullah. hadday taa kaa yeelaan salaadana u bandhig buu ka yidhi, salaadda inay tukadaan u sheeg. hadday salaadda kaa yeelaan zakada ka qaad buu yidhi. zakadu waa maxay? waa xuquuqda dadka masaakiinta fuqarada
ay ku leeyihiin dadka maalqabeennada maalqabeennadooda ayaad zakada ka qaadaysaa fuqaradoodii iyo ducafadoodii iyo dadka musaafiriinta iyo dadka tabaalaysan baad ku caawinaysaa weeyaan oo siinaysaa iyaaka wa karaa'ima amwaalihim buu nebigu yidhi yaa usaama yaa mucaad waxaan kaaga digayaa buu nebigu yidhi hee xoolahooga qiimaha badan leh inuu dabca kaa gelin buu nebigu yidhi adamcin xaq wixii sharcigu ugu leeyahay unbaa laga qaadaya zakada waa laga qaadayaa sadaqada hadday la baxayaanna waa sunno weeyaan iyakay u taallaa laakiin zakadu waa xaq mushtarag weeyaan bayna allahi caza wajalla wa bayna cibaadihi waa xaq mushtaraga weeyaan oo wuxuu ka dhexeeyaa ilaahay iyo addoomihiisa ayuu ka dhexeeyaa oo qofka muuminka zakada inuu bixiyo ilaahay baa ku amray walaakiin nebigu wuxuu uga digay martaqada mucaad binu jabal xoolahooga deeqda badan leh ee quruxda badan leh ee maaragtaanay fiicanaad aragtana wax tamac yuuna kaa gelin buu nebigu yidhi waayo ninka madluumkii xoolihiisa xaqdare lagaga qaato habaarkiisa wax ilaahay ka xijaabayaa nebigu ma jirta buu yidhi madluum ninka lagu gardarooday xaqiisii ama dhiig xaqdare lagaga daadiyey ama xoolihiisa xaqdare lagaga qaatay ama cirdigiisa sharaftiisii meel lagaga dhaco xaqdare lagu aflagaadeeyey waa madluumkuna walow kaafir muu noqdaa buu nebigu yidhi hee habaarkiisu dhulka ku dhici maayo buu rasuulku yidhi marka kelmaddaas laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah qofka yidhahda walaalayaal qofkaasi waa qof muxtarama xagga ilaahay waxtar u yeelo haddaad waxtar u yeelanayn sharkaaga ummadda ha ka nabad gasho calaa kulli muslimin sadaqa qof kasta oo muslima waagu markuu baryo xubnihiisa sadaqad baa laga rabaa inuu ka bixiyo waa 360 xubnood baa jirka bini aadamku markaasuu saxaabigii xadiiska warinayay baa yidhi in lam yajid oo qofku wuxuu sadaqadaysto uu la baxo hadduu nin haysana nebi allow bal noo sheeg markaa buu nebigu yihi fayacmalu biyadihi fayanfac nafsahu wayatasaddaqu naftiisa wuxuu yidhi gacantiisuu shaqo kula iman oo gacantiisuu maaragtaana shaqo ayuu ku samayni naftiisana markaa waxbuu tari uuna sadaqadaysanoo ummaddu wax tari buu rasuulku yidhi markaasaa la yidhi fain lam yastadic hadduu shaqaba karaynba markaa yuciinu dalxaajati almalhuuf qofka madluumka ama mudariga ee dhibaataysan ayuu u gurmanoo xooggiisu dadka muslimiinta ku caawin buu nebigu yidhi oo ka loo itaal sheegtay buu odhanayaa war ninkaasi waa laga gardaraya gardarada ka daaya ka dhibaataysan buu u gargaarayaa ka daciifka ayuu maaragtaan ayuu u gurmanayaa xooggiisu ummadda ku caawinayaa buu yidhi markaasaa nebiga lagu yidhi in lam yajid hadduuna karayna ya'mur bilkhayri dadku wanaagga u sheegi carabkaasu ummadda ku anfici marka hore waa dhaqaale marka labaadna waa xooggiisii marka saddexaadna waa hadal waa carabka ummadda wax ugu sheegi hadduu intaas samayn waayeyna baa nebiga lagu yidhi sharka ilaahay isaga ku abuuray buu ummadda meel kala fadhiisan buu rasuulku yidhi walaalayaal marka muslimku qiimo weyn buu ilahay agtiisa ku leeyahay lazawaalu dunya ahwanu cala allahi min ihraaqi dami lmuslimi bigayri xaq buu nebigu xadiis kale ku yidhi adduunka dhan oo meesha ka baxo oo la waayo oo baaba'o la baabiyo meesha laga saaro waxa ilaagtiisa uu kala fudud yahay dhiig qof muslim oo xaqdaro lagu daadiyo buu rasuulku yidhi maantana dhiigga muslimka adduunka siduu noqday waa kaas dhiigga muslimka laa tarjicuu bacdii kufaaran buu yidhi yadribu bacdakum riqaaba bacd dadku hadday qabyaalad iyo casabiyad intay dib ugu noqdaan ay hubka u qaataan waxau xadiiskaa sheegaya dadkaasi gaalnimo kufriga inay dib ugu noqdeen lanna waa min afcaali aljaahiliya qabyaaladoo la ysku laayo oo hubka la yskugu qaato oo la yskugu faano waa min afcaali aljaahiliya weeyaan xadiiskaasaa sheegaya ansaar iyo muhaajiriin markii madiine la yimiday ee shaqaduna ay ku cusbayd ee shareecadduna ay kolba in ay ku soo degaysa nebiga dushiisa waa kii yidhi ninkii yaalal ansaar laba nin ansaari nin muhaajiriin ay sar qabtay markaasuu kii ansaariga yidhi war ansaaray may markaasuu kii kale muhaajiriintu u yeedhay markaasaa nebiga loo tagoo lagu yidhi nimankii muhaajiriintii ansaartii saafihiiba isku qaateen
markaa buu nabigu soo baxay isagoo maradiisu go'a dhulka uu jiidanayo markaasuu afi bidacwa aljaahiliyati wa ana bayna adhurikum buu nabigu ku yidhi war ma dacwadii jaahiliyadda ayaad maanta anoo ini dhex jooga aad ku dhawaaqdeen buu nabigu yidhi habar gocashadii jaahiliyadda weliba raggaasi ree hebel may odhana waxay idhaahdeen yaa lal ansaar laanna magacan ansaartu diin buu ku baxay magacan muhaajirnimaduna biismi diin buu ku baxay laakiin waxaa shaydaanku damcay inuu adeegsado baatil oo dhiigga muslimiinta isku xalaaleeyo taasuu nabigu leeyahay war ma dacwadii jaahiliyadda ahayd ayaad maaragtaane ku noqoteen buuhi anoo maanta ini dhex jooga uu ka ilaaliyey nebigu calayhi salaatu wasalaam abu dar alghifaari baa ku yidhi bilaal ina hooyo madow abu dar nin iska yar kulkulul buu ahaa bilaal oo xabashii isyar qabteen markaasuu leeyahay waar waxaagan hooyadii ay madowdahay buu ku yidhi ereygii baa nebiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam markaa buu nebigu abu dar buu u yeedhay kaalay weli adiga waxaa kugu jirta buuhi khaslad jaahiliyada marba haddaad ereygaa walaalkaayoo bilaala aad ku tidhi acayartahu biummihi buu yidhi waar ma hooyadii oo madow baad ku ceebaysay buuhi ood ku aflagaadaynaysaa weli adiga khaslad jaahiliyadii baa kugu hadhay buu nebigu ku yidhi markaasuu yaa rasuulallah ilaahay dembi dhaaf ii weydiiye bilaal buu u tegey walaalkii bilaal yaa bilaal madaxa ayuu dhulka u dhigay baa la yidhi war bilaalow igu joogsa buuhi igu joogso markaasuu yidhi madaxaad ilaahay aad ugu sujuuddo anigu kugu joogsan maaye waa iska kaa cafiye allaha ku dembi dhaafa buu ku yidhi